بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه. ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ولا ليال ولي وحا إنو سعة دروستين امتحانها أهيد وأنو قلت لقلنا بشان رمضانك إن أنو أقفى إذي سنو قيبة أنواع كالدوان محاضرات خصية رمضانك. waxaan hore u soo qaadanay fadliga uu iska leeyahay ramadaan iyo qiimaha ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala bishani ay ku leedahay. muxaadaradeennu haddaba waxa ay ku saabsan tahay xilligan fiqhu ramadaan, ramadaanka xukunkiisa iyo axkaamtiisa. waxaa laga maarmaan ah qof walba ee muslim ah inuu macluumaad uu ka haysto oo duruus uu ka haysto sida uu u soomi lahaa, sida uu rabbi u caabudi lahaa subxaanahu wa tacaala wajalla jalaaluh. leanno qofku hadduusan garanaynin si rabbi uu ula xiriiro, si rabbi uu u caabudo, si cibaadada uu u guto, waxa uu noqonayaa qof isdhibay cibaadadiisiina waxba aan ka helin. sidaas awgeed waa laga maarmaan fiqhu siyaam inaannu wax ka ogaanno oo aannu wax ka diraasayno. waxaanu marka hore ku bilaabaynaa ramadaan. horta muxuu ku sugnaan karaa bisha ramadaan? ramadaan maxuu ku sugnaan karaa? ramadaanku wuxuu ku sugnaan karaa bisha ramadaan oo ay ku noqon kartaa bil sharci ah oo qofku inuu soomo ay waajib tahay sababahan soo socda mid ka mid ah. sababka ugu horeeyahay wuxuu yahay shacbaan inuu dhammaystirmo oo 30 maalmood uu shacbaan uu buuxsamo. shacbaanku haddii 30 maalmood uu u buuxsamo waxaa waajib noqonaya ramadaanka in la soomo, waxaana sharci ay noqon qof walba inuu soomo ramadaanka. lianna waxa weeye bil 30 ka badan bilaha islaamka ee hijriga ah kuma jirto. sidaa awgeed haddii la xaqiijiyo ramadaan shacbaan inuu 30 ahaa, haddii la xaqiijiyo waxaa waajib noqonaya markaas oo sharci ah in la soomo ramadaankii. waxaana laga maarmaana walaalayaal dadaalka in laga soo bilaabo shacbaan bilashadiisa. shacbaan bilashadiisa kow waa in laga soo bilaabo, maxaa yeelay bisha shacbaan waxay xiriir toosa la leedahay ramadaanka. liannahu ramadaanku wuxuu ku sugnaan karaa shacbaanku inuu 30kii uu buuxsamo. dadku marka waxaa dhaqamadooda iyo caadaadka ka mid ah in dadku markii ramadaanka uu kow yahay ama markii ramadaankii shacbaanku uu dhammaado ayaa cirka la eegaahoo la yidhaah war bishii ma dhalatay iyo idaacadaha aanu dhegaysanayo wax noo keena. dadaal sidaasu dadku cibaadada kuma bixiyaan. nabigeennuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuuna amrahayaa inaanu dadaalka ka soo bilaabno shacbaan. shacbaanaa la dooni in maaragtaay goormuu dhashay qofku mas-uuliyad muslimka ahi uu iska saaro. ma aha qofku inuu markii maaragtaay shacbaanku uu dhammaado markaa kabacdi uu meelaha eego uu yidhaaho war bishii ma dhalatay iyo bal idaacadda inoo soo jiida iyo war hebelow ama heblaayo maxaad maqashay iyo waxaasi dadaal ma aha walaalayaal. waxaa la doonayaa cibaadada in xil weyn layska saaro, maxaa yeeley waa cibaado aad ilaahay ugu dhowaanayto subxaanahu wa tacaala. nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku leeyahay xadiiskii tirmidi iyo xaakim ay warinahayeen oo saxiixa ahaa, axsuu hilaala shacbaana liramadaan. waxaad xisaabtaan buu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam bisha shacbaan ramadaan dartii, si ramadaanku uu idinkugu hagaago, si ramadaanku uu idinkugu ansaxo, si ramadaanka si sharciya uu maaragtaahay u waafaqo soomkiinu. dadaalka waxaad ka soo bilowdaan shacbaanka ka soo bilaabuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. soo xisaabiya shacbaan xilliga uu dhashay, shacbaan xilliga uu bishay, shacbaan bisheedii xilliga la arkay, halkaa dadaalka ka soo bilaaba ayuu leeyahay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. marka shacbaanku haddii maaragtaay 30ku u buuxsamo waa sababka ugu horeeya oo asbaabta ka mid ah ramadaanku markaa uu ku sugnaan karo.
waxaana sunno ah dadka muslimiinta ah marka ay bisha arkaan habeenka ugu horeeya oo bisha ay arkaan waa la ducaystaa nabigeena sallallahu wasallam wa baraka calayhi wuxuu ummadda amray inay ducaystaan habeenka ugu horeeya marka ay bisha arkaan qofku markuu ishiisa saaro oo bisha markay bilato uu indhaha ku dhufto ducadan soo socota ayaa sunnaha qofku inuu ku ducaysto wuxuu leeyahay allahumma ahillahu calayna bil-amni wal-iimaan والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير حديث كإمام الترمذي أيا سنن كيس كوريي وحوليه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه نبي عليه الصلاة والسلام حديث كوحورنا هي ضلحة بن عبيد أيا وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام وحدقن كيس يا سندي سويا هاي مركا وبشاركو وحورن جري النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أهله بالأمن والإيمان إله بشا وحات نوغسو دلسا أمان إيه الرمين أضيق أنه كرميسنا هاي والسلامة والإسلام إله النبتقلية إيه هقانسان أضيق أنه ضاعد هذا كوغو هقانسان إله بشا نوغسو دالي وبشا بلا شديد وحا إله اللوغو أمري بشا إنه نغطو بلدتك مسلمينتو أي أمان هلان nabadgelyo ay u helaan naftooda iyo diintooda iyo waddankoodaba ay nabadgelyo u helaan bil ay noqoto iimaanka iyo islaamku uu kobco oo uu ziyaado sidaas ayaa loogu ducaysan rabbi wa rabbuka illah hilaalu rushdin wa khayr aniga rabbigayga iyo rabbigaagu bil yahay waa allah rabbi ayaa rabbi noo ah aniga iyo adigoo bil yahay waxaad noqotaa bil khayr ah waxaad noqotaa bil hanuun ah oo laga faa'iideysto sidaas ayaa sunno ah qofku inuu markuu bisha arko inuu yiraaho waa bil kasta waxa kale uu ku sugnaan oo ramadaanku uu ku sugnaan karaa in qof caadiluhu bishii uu arko yacni shardi ma aha in jamaaco badan ay isla aragto ama dad fara badan inay isla arkaan taasi shardi ma aha haddii uu arko xataa hal qof oo keli ah laakiin lagu kalsoon yahay oo ahlu salaada qofku inuu maaragtaahay dee salaada tukanayo cadaaladda waxa ugu horeeya qofku inuu salaada tukado qof aan salaad tukanaynin dee caadil ma aha qof maaragtaahay jaadka iyo sigaarka iska cabahaya ama jidka istaaga oo dadka maaragtaahay maalkooda furta ama dhiigga daadiyo dhiigi cab ah looma ictimaadi karo bisha bilashadeeda qofku waa inuu yahay qof caadil ah oo ilaahay ka baqahayo xiriir ilaahay lale iskana ilaalinaya beenta iyo propagandada iyo dadka muslimiinta si khalada in lagu afuriyo ama si khalada dadka muslimiinta in lagu soomiyo waa inuu qofku qof iska ilaalin kara uu yahay sidaas awgeed nabigeena sallallahu wasallam wa baraka calayhi Abdullah ibn Umar ayaa u sheegay saxaabiga la yiraahdo wuxuu yiri rasuulka ilaahayow bishii ramadaanka aniga ayaa arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas uu iclaamiyay ogeysiis ayuu bixiyay oo wuxuu yiri bishii Abdullah ibn Umar ayaa arkay ee hal soomo ayuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam taasi marka waxay ku tusinaysaa hal qof oo kali ah haddii bisha uu arko laakiin qof caadil uu yahay in ay waajib tahay marka in la soomo waxa kale sidaas oo kale la mid noqon kara oo qofku haddii maaragtay dee hal qof kaliya baa hadda la sheegay haddii laba qof ay arkaan iyaduna waa sidoo kale wayba ka sii fiican tahayba laakiin hal qof baa lagu kaaftoomi nabiga calayhi salaatu wasalaam nin herbaadiye ah ayaa u yimid markaasuu rasuulka ilaahay oo bisha aniga arkay nabiguna sallallahu wasallam wa baraka calayhi iclaam ayuu bixiyay oo wuxuu yiri ha lagu soomo ninka herbaadiyaha ah ha lagu soomo hadalkiisa laakiin waxa aan sharci ahayn inuu qofku ku soomo xisaabta iyo kalandarka in lagu soomo taasi islaamku ma qabo oo xisaabta yacni hadda waxa jira kalandaro adduunku ay soo qoreen oo yacni la dejiyay sanadka dhan waxa la dejiyay bishu markay dhalanayso iyo markay dhamaanayso ayaa kalandar lagu soo qoray xafiisyadana waa yaala masaajida qaarna waa lagu soo dejiyaa kalandarkaasi marka laguma soomi karo maxaa yeelay waa wax bini aadam ay sameeyeen oo bini aadamku marka uu gafaa marna uu toosiyaa sidaas awgeed Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu adoonsaday bishaas in cirka laga eego taas ayaana xilligii nabiga sallallahu wasallam wa baraka calayhi la ictimaadi jiray oo nabigeena sallallahu wasallam wa baraka calayhi iyo saxaabadiisuba ay ku kalsoonaan jireen marka wax kalandar ay xisaab iyo munajim oo lagu soomahayaa ma jiraan marka ramadaanka markuu sidaa u sugnaado walaalayaal oo sidaa maaragtaahay loo xaqiijiyo waxa waajib noqonaya marka in la soomo ayaa waajib noqon sidee loo soomi axkaamtiisise see loo ilaalin fiqhu siyaam
fiqhu siyaam haddii aanu wax ka sheegno walaalayaal horta marka hore waxaanu ogaanaynaa oo wax ka baranaynaa yuu ku waajibaa ramadaanku. ramadaanku wuxuu ku waajibaa qofka shuruudan laga helay. qofku waa inuu muslim yahay ramadaanku uu ku waajibayo, maxaa yeelay qof gaal ah ramadaanku maba ka ansaxayo, tawxiidkii ka ballaarnaa kana weynaa kana muhiimsanaa soomka ayuusanba gacan ku haynin. waxaa kaloo shardi ah qofka ramadaanku uu ku waajibayo qof qaangaara inuu yahay. caruurta wax ramadaan ah oo ku waajibahayahay ma jiraan, laakiin waa sunno caruurta in lagu sii tarbiyeeyo sida saxaabada dhaqankooduba uu ahaan jiray. nabigeenuna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku amray oo qofka caruurta in lagu sii tarbiyeeyo soomku way wanaagsan tahay, laakiin waajib kuma aha. waxaa kaloo shardi ah qofku inuu caqli leeyahay ramadaanku uu ku waajibayo. dadka majaaniinta ah oo iska waalan ramadaanku waajib kuma aha. haddii hadhow miirku uu soo laabtana dib uma soo qadaynayaan oo wax qadaa laguma laha. tusaale ahaan qofku hadduu 10 sano iska waalnaan jiray, markaa kabacdi 10 sano kabacdi uu caqli soo yeeshay, wax ramadaana oo lagu leeyahay xataa la oran maayo soo qaday ramadaankii hore u soo tegay. waxaa kaloo shardi ah alqudratu cala asawmi xisan wa sharca. qofku waa inuu soomka awood u leeyahay xagga xisiga iyo xagga sharciga. hadduusanba qofku soomkii awood u lahayn, tusaale ahaan xagga xisigaba awood uma laha oo qofkii waa xanuunsan yahay, dee soomku markaa waajib kuma aha. ama qofkii safar uu galay, safar ayuu qofkii galay, dee qofka hadduu musaafir yahay sidaasoo kale isaguna soomku waajib kuma aha. laakiin labadooduba dib ayay ka soo qadaynayaan oo qada ayaa lagu leeyahay qofka musaafirka iyo qofka xanuunsanahay. qofka sharciga aan u awoodin isagana ramadaanka waxaa ka mid ah haweenaydii dhiigga caadada uu ku dhacay. haweentaa iyaduna ramadaanku waajib kuma aha inay soomto, xataa ka ansixi maayo hadday isku daydo inay soomto. islaantii umusha ku jirtay oo iyaduna nifaasku uu ka socday, dhiigga nifaasku uu ka socday, iyadana waajib kuma aha ramadaanku, mana ka ansaxayo haddii ay isku daydo. laakiin iyagana waxaa laga maarmaana inay dib ka soo qadeeyaan. dib qofkaas inuu ka soo qadeeyo ayaa markaa waajib noqonaya. marka la leeyahay soomku waa inuu qofku awood u leeyahay, waxa kaloo ku baxay dadka waayeelka ah, dadka gaboobay oo waayeelka ah oo iyaguna soomkii awood aan u lahayn ramadaanku waajib kuma aha. waxaa laga bixinayaa raashin uun, sida aanu muxaadaradeenna insha allahu tacaala aanu ku faahfaahin doono. marka qofka gaalka isaguna waxaanu soo sheegnay in ramadaanku uusanba waajib ku ahayn. hadduu soo islaamo qofka gaalkuna dib u soo qadee la oran maayo, oo wixii maaragtaa xilligii gaalka uu ahaa, xilligii gaalka ahaa waxyaalihii ka fakaday oo waajibaadka ahaa, salaadii iyo soomkii iyo soo qadee la oran maayo. maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf. waxaad gaalada ku tiraahaa nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh, haddii ay gaalnimadooda ka joogsadaan oo saaxada islaamka ay ku soo biiraan, waxaa loo cafinahayaa wixii hore u tegay guud ahaanba. waa cafis, yacni islaamku uu fidiyey, lagu kalifi maayo soomkii inay dib u soo qadeeyaan iyo salaadihii iyo sakadii ay soo qadeeyaan, waxba taasi waajib kuma aha. dee qofkii waalan iyo caruurtana waa sidoo kale waajib kuma aha. nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku leeyahay xadiiskii saxiixa ahaa rufica alqalamu can 3 can الsabiyi xataa yabluq, can الnaa'im xataa yastayqid, can اlmajnuuni xataa yufiiq. 3 wuxuu yidhi qalinka waa laga kor yeelay oo waxba lama qoro. 3daa waxaa ka mid ahaa qofka cunuga qofka saqiirka ah ilaa uu ka qaangaaro, iyo qofka waalan ayaa 3daa ka mid ahaa. sidaas awgeed soomku wuxuu kaluusan ku waajibayn ayaanu soo qaadanay dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunsanahaya. laakiin qofka xanuunsanaya waxaa loo kala qaadi 2 arrimood. qofku hadduu xanuunsanahayo soomku waajib kuma aha. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj. diinta dhib ilaahay ma yeelin, oo qofka hadduu xanuunsanahayo ilaa uu ka caafimaad qabo, ilaa uu caafimaad ilaahay uu uga soo celiyo oo caafimaad uu ka helayo, markaa soomku waajib kuma noqonayo. markuu caafimaado uunbuu dib ka soo qadayn. qofka marka xanuunsanahaya waxaa loo kala qaadi 2 arrimood. xanuunkiisu 2 ayuu u qaybsami. qof xanuunkiisa rajo laga leeyahay oo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen, dadka adibadaahi ay caddeeyeen in markaasi rajo uu leeyahay xanuunkan inuu ka bogsado oo xanuunkan uu ka soo kaco inuu rajo leeyahay. qofka hadduu rajo u leeyahay xanuunkan in laga daaweyn karo, xanuunada la daaweeyo ka mid a,
marka waxaa waajib ku noqonaya inuu dib ka soo qadeeyo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad uu siiyo ayaa waajib ku noqonaya inuu ramadaanka dhaafay uu dib ka soo qadeeyo haddii marka sidaa uu isaga tago oo sidaa uu ku geeriyoodo qofkii isaga oo rajo laga leeyahay oo la leeyahay xanuunada halista ma aha waa xanuuno ay suurtagal tahay in lala tacaalo oo la daaweeyo lagana raysto isagoo sidaa la isleeyahay ayuu xanuunkii ku tegey welina dib aan ramadaankii aan u soo qadaynin wax dembi ah oo qofkaa lagu leeyahay ma laha liannahu wax awoodaba ma uusan helin fursadna uma helin uu ku soomo xanuunkii dhexdiisii ayuu ku dhintay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nafta ilaahay kuma kallifo waxaan awooddeeda ahayn qofkanina wax awooda oo uu helay ma jiro kaasi waa gooni xanuunku hadduu yahay xanuunada halista ah oon daawada lahayn oo tusaale ahaan qofkii yacni waxaa ku dhacay xanuunkan kaankaraha la yidhaaho ayaa ku dhacay xanuunkan kaankaraha ku dhacay sidaa awgeed rajo ma lahan yacni dadkii adibada ahaa waxay caddeeyeen dhakhaatiirtu inuusan wax rajala qofkan uusan lahayn ama haddii kale beerkii oo kale xanuun khatar uga dhacay beerkiiyaa barar ziyaadaa bararay beerkiiyaa googo'ay wadnihii ayaa maaragtaahay khatar ay gashay keliyihiiyaa fariistay xanuunada noocaas oo kale ah qofku haddii uu ku dhacaan oo dadka adibada ay caddeeyaan in uusan xanuunkani laga bogsanaynin ilaahay gacantiisa ayaa qofka naftiisu ku jirtaa laakiin tajaarib la sameeyey ayaa lagu ogaaday xanuunada qaar inaan laga caafimaadin haddii sidaa dhakhaatiirtu ay u caddeeyaan qofkan xanuunkiisa inuusan ka bogsanaynin oo hawshiisu ay geeri tahay qofkaa marka waxaa waajib ku noqonaya in raashin uu iska bixiyo maxaa yeelay rajo male fursad uu ku soo qadeeyo raashin uu iska bixin markaasoo maalin walba ayuu qofka miskiinka wuxuu iska siinaa hal koombo waa koombooyinka ay ku qoran yihiin CBC koombada CBC ay ku qoran tahay ayuu ku cabiri markaasuu halkaa koombo raashina ayuu bixin raashinka markaa la bixinayana dee qofku markaas waxaa waajib noqonaya raashin aan shiidnayn daqiiqna aan ahayn inuu bixiyo ama haddii kale wuxuu bixin karaa timirtana wuu bixin karaa timir wuu ka dhigin karaa ganleyda bariiska waxyaalahaas ayuu bixin karaa laakiin burka iyo waxyaalaha shiidan kuma baxayso haddii qofkii miskiinka ahaa aad cunto u kariso baasto oo kale ama bariis intaad u kariso aad qado ka bixisana ama maqaaxi aad geyso iyadana ma ansaxayso waxaa la dooni yacni raashinkii oon shiidnayn oo koombadii yacni oo koombo lagu beegay raashinkiiyo sidiisiina inaad qofka miskiinka aad siiso ayaa waajib noqonaya sida saxda ahi waa sidaas waxaa kaloo la mid a qofka isagana qofka waayeelkana waa la mid qofku hadduu waayeel yahay marka isagana ramadaanku kuma waajibo laakiin waxaa laga bixin isagana maalin subax walba waxaa laga bixin hal koombo oo raashin ah maxaa yeelay taa waxaa tusinaya xadiiskii bayhaqi iyo tabaraani ay warinayeen saxaabigii la odhan jiray anas ibnu maalik wuu gaboobay da ayuu gaaray markuu gaboobay xilliga ramadaanka wuxuu samayn jiray maalin walba ayuu miskiin wuxuu siin jiray hal mud ayuu siin jiray yacni hal sano ka hor ayuu xamili waayey saxaabigaasi inuu soomo liannahu sida la ogsoon yahay anas ibnu maalik 100 sano wuu gaaray nabiga ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam in ilaahay cumrigiisa uu dheereeyo cumrigiisana ilaahay uu barakeeyo haythami wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa majmacu zawaa'id oo manbacu lfawaa'id xadiiska isnaadkiisa waa saxiix in anas ibnu maalik uu markaa isagu uu bixin jiray raashin uu bixin jiray markuu waayeel uu noqday sidaas awgeed dadka waayeelka ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan waxaa waajib noqonaya in subax walba markaa masaakiinta yacni sadaqa looga bixiyo oo hal koombo oo raashina ama bariis ama ganley ama digir ama qamadiga iyo wixii la heli karo in laga bixiyo ayaa waajib noqon markaa waxaa sidaas oo kale la mid ah qofka haweenaydu haddii ay uur leedahay ama ay cunug ay nuujinayso iyagana markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u fasaxay inay iska afuraan laakiin dib ay ka soo qadeeyaan marka haweentu hadday uur leedahay oo nafteeda ay u baqdo oo istiraahid ma soomi kartid oo daciifaysaa oo soonkan ma xamili kartid ama haweentii carruurka nuujinaysa ay naftooda u baqaan waxaa waajib ku noqonaya markaa dib inay ka soo qadeeyaan wax raashin ah oo markaa laga doonayaana ma jiraan laakiin haddii haweenkan ay carruurtooda ay u baqaan
oo islaantii nuujinaysay caruurka istiraaho caanaha yaraanahaya naaska caanihiisa yaraanahaya caruurka markaa ka dhibaatoonaya ama tii uurka lahaydna ay istiraaho cunugan uurka ku jira nafaqa darro khatar u galaya markaa qadlihiina waa laga dooni waxa kale laga dooni fidiye inay bixiyaan oo qadlihii waxa ku soo kordhaya koombo inay subax walba ay markaa ay bixiyaan ayaa ku waajibi haddii 30 maalmood markaas aysan soomin caruurtoodana ay u baqaan marka waxa ku waajibaysa 30 maalmoodna inay sidaa ay u soomaan 30 koombo raashinana ay sidaa ay u bixiyaan ayaa waajib noqonaysa walidaalika sidaas waa in walaalayaal loo ilaaliyo fiqhu siyaam oo ahkaamta siyaamka sidaa loo ilaaliyo haddii qofku safar uu galo isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu u fududeeyey inuu markaa yacni soomkii uu iska daayo oo iska afuro dibna uu ka soo qadeeyo walidaalika laakiin safarka waxaa shardi ah safar dheer inuu yahay qofku hadduu muqdisho ka tago afgooyo uu u safro yacni kaasoo kale safar laguma tilmaami karo safarku ugu yaraan waa inuu gaaro 90 kilomitir ilaa meel 90 kilomitir oo kale ah qofku hadduu safarkiisa uu ku beegan yahay wuu u bannaan tahay inuu markaa uu iska afuro hadduu doono yacni ha ku safro diyaarad ama ha ku safro gaadiid oo yacni gaari oo kale ha ku safro ama ha lugeeyo ama faras ha raaco waa isla mid safar waa safar marba hadduu safro yacni wuxuu daruuro u heli karaa inuu markaa uu soomka iska daayo oo iska afuro dibna maalmahaas uu afuray uu ka soo qadeeyo liannahu xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen oo caaisha ay nabiga ka warisay sala allahu calayhi wasalam ayaa xamsatu bnu camr al-aslami ayaa wuxuu yidhi saxaabigaasi rasuulka ilaahay oo safarka ma ku soomi karaa waxaan doonayaa inaan safro nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi in shi'ta fasum wa in shi'ta fa afdir haddii aad doonaysana safarka ku soom haddii aad doonaysidna iska afur yacni adiga ayay kugu xihan tahay haddaad soomka awood u leedahayna waad soomi kartaa adigoo musaafira haddaadan awood u lahayna waad iska afuri dibna waad ka soo qadayn xadiis kaloo bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayaa anas ibnu maalik wuxuu ku lahaa كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم نبي أيان سفر لقلني صلى الله عليه وسلم مركز صحابتنا قيبة كمدنا way afureen oo safarkii gudihiisa ku afureen qaybna way iska soomanayeen kii soomanay ma uusan ceebaynin midkii afuray oo ma uusan oranin war maxaad la afurtay anigu waan soomanahay walal mufdiru ala saa'im kii afursanaana saxaabigii soomana ma uusan cambaarayn maxaa yeelay laba qof walba khiyaar uu iska leeyahay taasi waxay ku xiran tahay qofka naftiisa iyo awoodiisa iyo kartidiisa ayay taasi ku xiran tahay xadiis kale oo bukhaari uu warinayay من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أي وحوها جابر إنه يري رسولك صلى الله عليه وسلم أي سفر إسلا قالني مركز أي رسولك وحو أركي نين له سنة أو مريو قرحدي اللوغة علينا أو تعبان أو سحابي أيو أركي أيضا مركز رمضان كي لجوغو مركز النبي كيري صلى الله عليه وسلم ورنين كان أدمريها كوه سنيسان محاكو دعي وحيره رسولك إلهي ونين كان وسومي هاي markaasuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam laysa min albirri sawm fi safar wanaaga kamid ma aha qofku inuu safarka ku soomo hadii soomku dhibaato uu geysanayo yaani qofka xadiiskan waxa laga fahmay hadii dib badan uu soomku ku geysanayo marka yaani waxa ku ajir badan inaad iska afurtaa ku ajir badan maxaa yeelay ninka nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu arkay inuu naftiisa khatar gelinayo wuu u diiday nabigu wuxuu leeyahay waxaas ajir laga heli maayo ajir wanaagsan laga heli maayo taa yaani inaad qofku naftaada kalifto heer lagu gaarsiiyo yaani maryo lagu hoosiyo oo naftaadii ay khatar gasho taas oo kale lama ogola hadii qofku markaa soomka uu san awoodi karin musaafirna uu yahay waa inuu markaa iska afuro marka taas xadiistaas oo dhan waxay cadeynayaan in maaragtaa qofku khiyaar uu heli karo haduu musaafir yahay xadiis kale Bukhari iyo Muslim ay warinayeen min xadiis Abi Darda ayaa wuxuu tilmaamay Abi Darda nabiga ayaan raacnay sallallahu alayhi wasallam bil Ramadan oo aad u kuleyl badan ayaan raacnay marka wuxuu yiri gacmaha ayaan madaxa sida u qabsanayno saaranaynay kuleylka jira yaani khatarta qorraxdu ay lahayd xilligaas marka wuxuu leeyahay saxaabigan Abi Darda wama fiina saa'im illa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha
qof soomanin naguma jirin oo saxaabadii oo dhan way xamili waayeen oo way wada afureen ilaa safar ayaanu ku jirnay kulaylkuna wuu daraa ramadaankii ilaa nabiga baa naga soomanaa iyo saxaabi la yiraahdo Abdullah ibn Rawaha nabiga sallallahu alayhi wasallam de kartidiisa lama gaari kare nabigu wuu soomanaa Abdullah ibn Rawahana wuu la soomay nabiga alayhi salatu wasalam intii kale saxaabaduna way wada afureen nabiguna kuma cambaaraynin qaybtii afurtay saxaabada kamida oo maaragtay de xamili waayeen qoraxdii kulaylkii iyo safarkii kuma uusan cambaaraynin taasi marka waxay tilmaamay qofka hadduu safar ku jiro suu doono ayuu yeeli karaa inuu soomo iyo inuu afuro taasi waxay ku xiran tahay awoodiisa markaas marka qofka waxaanu hore u soo qaadanay haweeneyda dhiigga caadada qabta ayadana in soomku uusan waajib uusan ku ahayn oo haday doonto ay yani soomku inuusan waajib ku ahayn oo iba afureysaba haday doonto ma ahan inay afurtaaba la doonayo soomku maba ka ansaxayo soomku ka ansixi maayo sidaas awgeed yani nabigana alayhi salatu wasalaam واتي عائشة واتي أي ورينيسي حديث إمام مسلم صحيح سكوري كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها waxay tiri anaga waxa nabiguna amri jiray inaanu soomka soo qadayno marka dhiigu nagu dhaco soomka marka soo qadayno nabiguna amri jiray hadii dhiigu nagu dhaco laakiin salaadaha nama amri jirin nabigu alayhi salatu wasalaam salaadaha inaanu soo qadayno nabigu nama amri jirin marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamay xadiiska Aisha in ay markaas yani dumarka dhiiga qaba dhiigu ku dhacay ay waajib ku noqonayso maalmaha inay dib ka soo qadeeyaan waxa kale oo fiqhu siyaam kamid oo laga maarmaan ah qofku inuu niyeysto habeen walba oo ramadaanka kamida niyada ha ka tagin qofka saa'imka ah iyo gabadha saa'imada ah iska ilaali niyada ha ka tagin habeen walba oo bisha ramadaan hadii aad niyada ka tagtid soomkii kuma xirra wax ku jira oo ku ansaxayaan ma jiraan isla markaana waxa lagu yeelanayaa imsaak inaad afaysato waxna aadan cunin waxna aadan cabinna markaas waajib ayay kugu noqon soomna kuma xirra sidaas awgeed niyada habeen walbaahi waa shardi nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay xadiiskii saxiixa ahaa oo duruq fara badan lagu wariyay Tirmidhi iyo Daaraqutni iyo culimo kale muhaddisiin ay warinayeen man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lah qofku haduusan habeenkii uusan soomka niyeysan wax soomaho u jira malahan ayuu yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam marka niyada ha iska halmaamin habeen walba waxa la doonay in aad niyeysato marka niyada macnaheeduna waxa weeye waa i'tiqaadul qalbi qofka inuu qalbiga ka caqiideeyo oo qalbiga uu ka aamino inuu maaragtaa bari uu soomayo inuu qalbiga ka go'aansado ayaa laga maarmaana ha inuu ku dhawaaqaa shardi ma aha inuu ku dhawaaqo taasi shardi ma haduusan ku dhawaaqin oo qalbiga uu ka niyeysto waa u ansixi laakiin haduu dhawaq ku sii darana ka sii wanaagsan oo qalbigii iyo carabkii labadaba uu ka yiri niyadii sidaas awgeed haduu carabka ka yiraahana way ka sii fiican tahay oo nawaytu sawma qadin uu yiraaho waxaan niyeystay bari inaan ramadaanka soomo ayaan niyeystay inuu sida afka ka yiraahana way ka sii wanaagsan tahay iyadana laakiin waajib ma aha marka hadii aanu ka hadalno dhinaca mufdiraadka maxaa soomka burin kara taasi waxaanu dib ugu dhiganaynaa walaalayaal waqtigii oo inaga dhamaaday awgeed muxaadaraadkeena kale ayaan uga hadli doonaa waxyaalaha soomka buriya hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina